الله تعالى وبركاته صحات ميل بدونيدا كجوجتان وصاحبكين عيلتي ربوي برنامجكي جعلك كسو دواده ان اصحابته وديابنتين او واحد اسليدهين نيك odaga تيك توك lagu ogaa barnaamijka jacalka inuu ka daadiyo waa maxay hadana maanta YouTube soo fadhiistay sababo jiro awgood aan u soo fadhiistay YouTube-ka iyo dad fara badan oo commentiga qaarka oo TikTok-ga dhanka TikTok-ga igaga soo qoreen idhaheen YouTube-ka iyo TikTok-ga labada meel baan ugu kala maarey arno hal maalin kama jawaabi karin intaas oo commentiga laakiin waxaan awood u leeyahay inaan maalintii hadii ugu yar tahay 6 qofood inaan u jawaabo oo aan jawaab siiyo ay ku qancaan arno evel fikradan dhiibaayay haddana waxaan diyaar u ahay sida aan evel idin qancinayay oo aan evel niila dhimanayay inaan hadda niila dhinto oo ni qanciyo YouTube-ku waa kana waa soo fadhiistay barnaamijka jaceelka TikTok-gana waa ka wadaaya TikTok markaad commentiga ii soo qortid aad iga rajeynaysid inaan fikrad ku siiyo oo fikradaas TikTok-ga aad soo dhigi waayo YouTube-ka soo dhigay YouTube-ka hadii aad ka weysid fariintaada inaan ka soo falceliyay hadii aad ka weysid TikTok-ga u raadsanay oo TikTok-ga aan soo dhigay laakiin qaarkii oo YouTube-ka commentigiisa igu soo qoro YouTube-ka kaliya uga soo bixina laakiin kuwa TikTok-ga igu soo qoro inta badan waxa la igu soo qoraa TikTok-ga markii la igu soo qoro commentiyada waxaan sameeynaa oo ku kala maareena 5 qofood xaq ka soo qaada YouTube-kan uga soo hadlaa hal qofoodna maalintaas TikTok uu saaran yahay arno marka waxa la asxaabta aan isla socono labada meelba waa meeshiina idinka waa iska leh idinka igu kulifay ina barnaamijka jaceelka aan ka bilaabo YouTube-ka hadeertaana waxaan falcelin ama ra'yi aan siinaya 5 qofood ay ii saaran 5taas qofood hadii aad kamid ahaan weyso TikTok-ga tag inaan maanta ku soo jawaabo laga yaabaa hadii maanta aan ku soo jawaabi waayo YouTube-ka bari ka fiirso ama bari damba TikTok-ga ka fiirso arno TikTok-ga hoos u yaalaa like sidoo kale YouTube-kana waaba kana subscribe-ka hala saaro insha Allah aan isla socod wanaagsan gabadhan waxa la dhahaa Xamdi Xiis waxay leedahay walaal cirtira wiil ayaan isjecelnahay wana ijecel yahay balse badana qof aad u mashquul badan waqti haduu helo oo isiya muddo isug ayuu idahay arno waxaan u maleynayaa arin guur iyo waxaas inay tahay muddo isug ayuu idahay walaal ma sugaa mise waan iska dhaafaa dabcan sidaas aan u fahmay hadalkeeda balse walaashay waxaan ku leeyahay jecel intaan oo dhan soo dhisiiseen arno aadan mirihiisa wali aadan ka miro dhalin waqtiga aad ka miro dhalin lahayd aad taagan tahay dabcan waxaan ku dhilahaa ku gacansiir waqtiga uu ku qabsaday sug waxa laga yaabaa inay adiga naftirkaaga dunia kale ku soo iftiinayso farxad kale gooniyo inay ka dambaysaa laga yaabaa suugaas aad sugaysid waxaan ku dhilahaa walaashay sug u dulqaado intaan bood soo dulqaadanaysay marka walaashay waxaad noqotaa qof aqli badan inta aad maskaxda ka fikir lahayd mar walba qalbiga ka fikir insha Allah waxaan ku rajeynayaa guul asxaabta aad u mahadsantihiin qofka xigo waxa waaye waa ayadana sidoo kale dumar kuweena taasha waxay leedahay walaal waxaan isjecelnahay wiil muddo 4 sano ah mar walba wuu iga tagi jiray haddana wuu ii soo laaban jiray laakiin hadda wuu iga tagay u maleysaa inuu ii soo laaban doono gabadhan waxay leedahay saaxiibkay mar walba wuu iga tagaa muddo 4 sanana waa isla socona wuu iga tagaa wuu ii soo noqdaa wuu iga tagaa wuu ii soo noqdaa arno marka hadda wuu iga tagay ma ii soo noqonaya muhiimadda waxay tahay marba hadii aad muddo 4 sano ah isla socoteen jaceelkaasna uu soo jiro muddo 4 sano ah muhiimadda waxay tahay dabcan hadii aad wanaag fara badan jaceyl fara badan dareen fara badan aad hore u dhiibatay dabcan qof lama horaan hadii aad tahay ku soo noqonaya oo aad tahay
qof hore usoo dadaasha. Horaa waxaa loo yidhi mukulaal meeshii mac ku aragta ee macluul usoo raadaysaa. balse muhiimaddu waxay tahay wanaagga hore faraha badnaa aad hore u samaysay wanaaggaas dartiisa inuu kugu soo noqdo waa laga yaabaa. marka walaashay waxaan ku leeyahay haniya jabin, insha Allah waxaan rajaynayaa inaad farxad igu noolaato asigana uu kuu soo noqdo. aad ugu mahadsantahay. qofka xiga ayaan fiirinaynaa. wiilkan waxaa la dhahaa Maxamed Aweys. wuxuu leeyahay gabar ayaan isjecelnahay, hal iskuul ayaan isla dhiganaa, mar walba ayada way ilaashataa wayna i jeceshahay. arino marka ma isku haleyn karaa qalbigayga ma u furi karaa camal oo fahmay. hal mid ayaan kuu sheegaa, iskuna day inaad fikrad kala dhaxbaxdo. muhiimadda horta kabtan waxay tahay jacaylka sidiisa banaan ma ahan wax sida alaabtii oo kale ah, balse waxa xaqiiqo ah qofkan ina adiga markii aad u baahan tahay misana asi qofkan markii uu ku fiican yahay sidoo kale inaad dareemaysid qofkan adiga inuu si xad dhaaf ku rabo inaad dareemaysid. muhiimadda waxay tahay ayadu way ku jeceshahay sida aad ii sheegtay. adigu hadda waxaa taagan tahay qoftaas ma isku haleyn karaa. dabcan qofta waad sheekaysanaysaan, waqti fara badan aad wada qaadanaysaan, in muddaa wada sheekaysanaysaan, teleefonka wada hadlaysaan, intaas waad isfahmaysaan. haddii ay tahay qof adiga maanta naftaada xakameyn karto, dabcan meeshaas aad ka ogaan kartaa. haddii ay taheenna qof aadan isfahmi karin, sidoo kale ayadana meeshaas aad ka ogaan kartaa. muhiimaddu waxay tahay inaad qofka fursad aad siiso, aad wax marka hore aad ku darsato si aad u ogaato qoftan ma kuu qalantaa mise ma kuu qalanto. mana ku dhahayo qalbiga kadib, mana ku dhahayo ayadoo kuu baahan cidleed. ayadana sidoo kale kulama talinayo oo ma dhahayo qofkaas qalbiga ka jabi ama cidleed. muhiimadda laakiin waxay tahay horta intaas fikrad ah kala dhaxbax jawaabtaada. laakiin hal mid aan rabaa inaan dhanka dumarka aan ku eego oo aan dhaho eedna igama ahayne tale iga tahay. dumarka sidooda bannaan waxay jecel yihiin ragga mar walba markii ayaga dumarka qaldan yihiin, sidoo kale markii qofkay lamaana leeyihiin ama ay la socdaan ama wax oo kala dhexeeyo kale inay markii isku dhacaan in ayaga la sasabo. sidoo kale markay qaldan tahay in haddana ayada la dejiyo oo la sasabo. sidoo kale qofkan markii ayada ay qaldan tahay meeshii laga sixi lahaa asiga inuu isjilciyo oo ayada baryo haddana uu sasabo. inta badan jecel yihiin kaasina u arkaan inuu qofkaas uu yahay qof jecel, qofkaasay u arkaan inuu yahay qof ilaashanayo haddii uu xataa been u sheegayo. laakiin xaqiiqadan kaala hadla sidaas mustaqbal ma ahan. qofkan wuu kuu qoslaa, sax iyo qalad uu kugu daynayaa, laakiin qofka sida dhabta ah kuu jecel mar walba dhibkaaga necab, sharaftaada inay hoos gaarto necab. waxaad ku ogaanaysaa waa qofka mar walba ku celiyo ku dhaho adiga waxaan kuma fiicno, waxaan waa qalad, waxaan wax fiican ma ahayn, run ahaantii waxaan wax laga heli kara ma ahayn. maanta wadada aad ku socotid wada fiican ma ahayn. teeda kale hadalkan adigu la hadlaysid aniga kaama mudin, hadal fiican ma ahayn. qofka inuu ku ceshan karaa habboon, balse haddii adiga lagu ceshan karin oo aad tahay qof aan la ceshan karin, oo haddii aad adiga naxariis aad u aragto ninkan inuu ku baryo ama ninkan inuu macnaha haddii aad qaldan tahay uu ku dhaho waad saxan tahay, haddii aad saxan tahay inuu waad saxan tahay ku dhaho arno taas waa wax iska caadi. laakiin haddii aad qaldan tahay haddii uu qofkan ku dhaho waad saxan tahay arno naftaadana beenaad u sheegaysaa, asigana naftiisa beenuu u sheegooyaa. adiguna mustaqbal ma lihid, asiguna mustaqbal ma laho. xaqiiqada taasa sababtoo lisma fahmaayo. laakiin waxaan dhihi lahaa mar walba marka aad qof nolol inaad ku darsato aad rabto, ha noqoto qofaad ka fikirtay, ha noqoto qofkan adiga ma kuu qalmaa, qofkan qiimahaaga ma ilaalin karaa, qofkan adiga farxad ma ku siin karaa, qofkan adiga nolosha ma la qaybsan kartaa, qofkan adiga si walba ma kuu qancin karaa.
oo noloshaada ma xakameyn karaa. noloshu waxay tahay waa intaas mustaqbal in la yeesho way fiican tahay. asxaabta aad u mahadsantiin, waan iigu dheeraada umaleynaa. hal qofooda ii dhiman. wiilkan waxaa la dhahaa Boses, wuxuu taagan yahay walaal ceeltire qofteeda mar walba way iga maseersiisaa. arno misid asxaabteeda ee usoo direen ama misid nin kale oo usoo diro kale ee igu maseersiisaa ee igu gubtaa. so marka waxay ila tahay inuu fikrad oo iga raba ay tahay qoftaas ma la sii joogaa ama sidee aan wax ka yeela. muhiimadda waxay tahay kabtan, mar haddii aad tahay qof dulqaad badan, arno intaas laga yaabo dumarka sidooda banaan way iska maangaadeen. waxaa laga yaabaa intaas inay isleedahay asiga makuu maseeraya, asiga makuu xanaaqaya, inay ayada u aragto misena farxad ee u aragtaa laga yaabaa adiga xanaaqaya. dumarka isku mid ma ahan. adiga marka aad maseertid ayada inay intaas qanacsanaan u aragtaa laga yaabaa, balse wax fiican ma ahayn. mar walba waxaan ku dhihi lahaa dulqaad muuji. haddii aad qofta jeceshahay aadan ka maarmin, inaad ka tagtana aadan jecleen, mar walba dulqaad muuji. okay dadaala guu gaaraa. aniga ma dhiishan booyaa dhahay. asxaabta aadaad u mahadsantiin. marka kabtan adigana waxaan ku leeyahay niyadda qeyr u sheeg, nin dulqaadanaya iska dhig si aad u gaartid meesha aad adiga doonaysid inaad gaarto. jecelkaagana ha noqdo midad ka miro dhaliso, balse ha ku fikirin inaad qof xumayso weligaa. mar walba ku fikir inaad qof wanaajiso si aad u noqoto guulayste. aad u mahadsantiin asxaabta. barnaamijkeena intaanu ku ekaa. kulanka xiga waxaan rajeynayaa inuu sidan kasii qurux badnaado. maanta waa isku cusubnahay. hadduu ilaahayna gaarsiiyo youtube-ka hala share gareeyo, share hala dhaho, subscribe-ka hala saaro. waad ogtihiin inaan balan galay. igaaga wuxuu ii balan qaaday haddii aan gaaro 60,000 oo subscribe, haddii aan gaaro inuu isiinayo wax aanan weligay gacanta aanan ku qabanin, inuu isiinayo. wuxuu dhahay waad aragtay laakiin weligaa gacantaada kuma qabanin. waxaa kaloo isii dhahay ceeltiro haddii aan ku fiiriyo waxaan aaminsanahay waxaas inaad qabato xataa weligaa inaadan ku riyoonin. muhiimadda waxay tahay waxaas aniga inaan helo waa jeclaa asxaabta. idinkana inaad aragtaan waad jeceshiin. dabcan waxaan weli ku kalsoonahay dhiiggiina inuusan dhiig biyo ahayn. aad i gaarsiinaysaan 60,000 uusan ahayn waxba. 60,000 2 daqiiqo xataa aad igu gaarsiin kartaan, balse waxaan rajeynayaa asxaabta waadna ogtiin sida aad ii jeceshiin inaan idin jeclahay. mar walbana waxaan jeclaa inaan idin hagar baxo. muhiimaddu waxay tahay isku daya inaad i gaarsiisaan 60,000 si aan u helo waxaas la ii ballan qaado. weliba waxaa la isii dhahay bil gudaheedana iyo ka badan aad igu gaarsiin kartaan. waana idinku kalsoonahay. youtube-ka hala saaro subscribe-ka, like-tana hala saaro si ay asxaabta kale u wada arkaan. share-na hala dhaho. aad u mahadsantiin. isku soo noqo dambe oo xiisa la waan idin xiisi doonaa. I love you. bye bye.